waxbaad kula wadaagayaa laba arrimood oo muhiimadeeda leh haddii aad rabto in aad ku noolaato nolol xasiloon horumar wacan inaad mar walba ku jirto tawakal siyo xataa ay muruga jirto aad qalbiga ka faraxsanaato labada haddaad fahanto kaalin kasta oo kugu adkaata ama marxalad kasta oo ku qabsada waxaad ahaanaysaa qof degenaansho arrimihiisa ku qabsaday oon walwalayn oon cabsoonayn oo hurdo la-aan ku dhacayn ayaad noqonaysaa labadaasi maxay tahay inaad ku tala gasho marka u horeysa waxa weeyaan maskaxdeenan allah subxaanahu watacaala wuxuu u abuuray inay maskaxdani ku shaqayso waxa maanta taagan iyo waxa dhow maxay ahayd amba maanta noqon kara amba beri noqon kara laakiin maskaxdani uma samaysna in ay ku shaqayso waxa soo socda waad ka yar fikiri kartaa waxa soo socda laakiin maskaxdani ma helayso jawaabta waxyaalaha soo socda caalimul qayb ma tihid beri waxa dhacaya ma ogaan kartid in xilligaad dhimanayso ma ogaan kartid in maanta mustaqbalkaagu wuxuu ku dambeyn karo ma ogaan kartid arrinta aad maanta hayso beri waxay ku dambeynayso wax garantiya ma laho marka waxa inaga qorsoonay soo socda ilaahay unbaa og that's why baan maskaxdan saas loogu talagelin haddii loogu talagalay waxyaalo badan boo yadii kasii fikir lahayd oo kuu sheegi lahaa laakiin waxa soo socda maskaxda looguma talagelin marka maskaxda ha kululeynin sida mashiinka gaadhigu u kululaado maad aragta mooteerkiisu u kululaado markuu biyuhu ka dhamaado saliidu ka dhamaado wax walba isku dhex darsado marka maskaxdan ha daalin maskaxda looguma talagelin waxyaalaha soo socda inuu jawaabtiisa helo waxaas maskaxdu shaqo kuma le marka madaxan ha wariirin ha kululeyn ha gelin mugdi ha gelin walwal hurdo la-aana qaadin waxa soo socda ilaahay unbaa og that's why baa laynoogu baaqayaa inaynu ku jirno tawakal cala allah tawakal cala allah haddaad ku jirto arrimahaaga ilaahay baad u dhiibatay sidaasaad ku nafiistay marka maskaxda waxaa loogu talagalay waxa maanta dhacaya waxyaalaha dhow inaad ku fikirto si aad wax ugu qabsato laakiin jawaabo aad ka sugayso futureka bisha soo socda sanadaha soo socda waxba kulama qabanay maskaxdan that's why baad hurdo la-aan u qaaday dhiigkar u qaaday muxuuhaa macaanad uga qaadaysaa walwal uga qaadaysaa markuu qofku waxaasoo dhan iskugu biiro jirka wuu daalayaa marka maskaxda wax dhow ku qabso maanta beri dhowr cisho laakiin bisha soo socotay sanadaha soo socda jawaabo ma helayo maskaxdan waxaa looguma talagelin marka ilaahay u dhiibo wixii futureka ku saabsan tawakal cala allah ku jir maskaxdaana kaga shaqee maanta ahaan maxaa jira maxaan qabsan karaa arrinta labaadan doonaya kuu sheegana nafteenan laga soo qabo madax iyo mijo iyo lugo indhaheena dhagaheena qalbigeena jirkeenan oo dhan waxaa loo abuuray in ilaahay aynu ku caabudno marka caabudaadda iyo kaali arrimaha loogu talagalay haddaanad naftan ku qabanayn naftani mar walba waxay ku jiraysaa mugdi markaa si aad iftiin u hesho farxad u hesho firfircooni u hesho wixii loogu talagalay ugu qabo maxay tahay waa inaad cibaadadii aad iyo aada ugu dadaasho salaadii soonkii sadaqadii waalidkooda wanaagsanaato dariskooda iska dhoortooda u fiicnaato awlaadaadii ood ka warhayso zawjkii iyo zawjadii ood u fiicnaato yacnii naftan wixii loogu talagalay cibaado ah u qabo waa sidii loogu abuuray wixii loo abuuray haddaad u qaban weydo dee maanta dhan waxaad ku jiraysaa ooyin walwal dhibaato mugdi baa ku jiraysaa so noloshan imtixaan wuu jiraa haa laakiin waxaa jira imtixaanaad kaga baxayso adoo qoslaya maxay ku imanaysaa waxay ku imanaysaa markaad qalbiga ka faraxsan tahay qalbiga ka degan tahay ilaahay arrimahagaad u dhiibatay ilaahay aad tala saaratay isaga aad mar walba baryayso ayaad kaga baxaysaa laakiin tii noloshu haddana aad adayg ay leedahay haddii adiga aanad dadaalayn oo naftan wixii loogu talagalay ku caawinaye enerjiga ku ahaaye ku jiidaye aad powerka ka helaysa aad u qaban weydo dee madow unbaad sii dhexgelin mugdi unbaad sii dhexgelin adayg unba adayg sii noqon marka insha allah labadan ku dadaal kow in maskaxdan wixii loogu talagalay aad qabato ah wixii maanta taagan iyo beri taagan aad ku qabsato waxaad bisha soo socda amba sanadada soo socda aad su-aalaha iska weydiisato aad ilaahay u dhiibato tawakal aad tiraahdo talabaad jirkan waxaa loogu talagalay in ilaahay lagu caabudo naftan waxaa loogu talagalay inuu ilaahay caabudo marka cibaadada u badi cibaadada wixii caajis kaa gelinayana ka hadh waad iskaranaysa adigba naftaada maxaa cibaadada kaa jeediya waxyaalaha kaa jeediya qoro kuna dadaal inaad khayr ku bedesho marka intani waa talo anigana igu socota adigana aan kusoo gaarsiinayo ilaahay noo fudaydiyo
khayr badan baan idin rajaynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.